munaasabad loogu talagalay xuska dhalinyarada SYL ee iyagu ahaa dhalinyaradii u soo halgamay in Soomaaliya ay noqoto wadan xor ah ayaa lagu qabtay magaalada Helsinki waxaana xafladani soo agaasimay ururka dhalinyarada Canada. xafladaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano Soomaaliyeed oo iyagu marti u ahaa wadanka Finland waxaana kamid ahaa xildhibaanadaasi Sacdiye Sheegow iyo Sacdiyo Carays Ciise oo maalmahan iyagu ku sugnaa wadanka Finland isla markaana ay u suurta gashay inay ka qayb galaan 15 May maalinta xuska dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaba maxaa kamid ahaa warbixinadii ay ka jeediyeen xildhibaanada iyo sidoo kale jaaliyada Soomaalida ee wadanka Finland. mar labaad waxaan leeyahay barnaamijka soo sheegay 15 ama 15 May maalinta dhalinyarada ayaa loogu talagalay marka wixii tafaasiil gadaal baa laga sheegi doonaa. dhalinyarada sidoo kale waa salaamatiin Allah marka waqtiga kama luminayo waa maasantiin. dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan maanta loo sameeyay maalintii la aasaasay ururkii gobonimo doonka Soomaaliyeed ugu horeeyay oo ah xisbiga SYL 1943 dhalinyaradii ururka aasaasay waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto إلهي جنة الفردوس هكا ورابيو وعان حدي أي مانتا نلجوكي لهايين عيلة يقول ملاهاي ولا يروح المانتا يسوقون نمد إنا إنو كهذا لنو تاريخ دي مالنتي دانيرا أورك SYL وحلقة جوغا إمنكا كوية تضباطا سندوت حلقاسي وحينو قرنكرنا إن صوماليا وكجري gacanta gumaysiga wuxuu kala qaybsanaa Soomaalidu ama dhulka Soomaalidu degtay waxay kala qaybsanaayeen 5 qaybood oo waxa kala qaybsaday gumaystihii dalka ku soo duulay iyo Afrika dhamaanteed. gabdho Soomaaliyeed oo daadooda ay yar tahay isla markaana ku dhashay wadanka Finland ayaa fariin waxay u dirayaan xildhibaanada Soomaaliyeed iyo kuwa haatan martida u ah reer Finland waxaana warbixinada gabdhahaasi kamid ahaa sida tan. habriyaal waa ku mahadsantihiin noogu imaadeen maanta waxaan rabnaa inaan iga gaarsiino fariin gabdhaheena dhan oo ku dhashay Finland oo ku barbaaray waxaan rabnaa inaan idhaahno inspiration noo siiseen wili ma arkin habriyaal noo siiya ani ahaantayga waxa waaye Soomaaliya aan ugu naqalahayd wax barto jaamacad soo baxo laakiin waxa ani iga cabsiinooy Soomaaliya waxa waaye waxa hadda ka socdo iyo hadda dhow waxa ka maqlo waxa ka dhacay in gabadh oo jaamacad ka baxda la dilay iyo waxa dadka gabadhiinay marka munaasabadan aad u qiimaha badan waxay mudan tahay in la weyneeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan uga diray hambalyo waxaan leeyahay SYL waxay ahaayeen gobonimo doonkii nimanka u soo dhintay u soo dhibaatooday oo Soomaaliya gobonimada ay heshay 60kii nimanka soo hooyo waay waxaan rabaa oo kaliya inaan idin sheego inaan idinkaga soo qayb galay barnaamijkan loo dabaaldegayo SYL ma aha wax fudud dad baa dhiigooda u soo cabay dhalinyaro yar oo is aruursatay oo cid dirsatay aysan jirin bay ahaayeen oo taariikhda Soomaaliya markii la sii raaca ma ahayn ragga oo kaliya 13 dhalinyaro oo nimanka ah oo kaliya ma ahan yaana la hilmaamin dumarkii dhiigooda iyo dhacaankooda u soo cabay dahabkooda u gadi jiray aan ka heli jirin nimankii u soo halgamay meesha ay maraan bay la mari jireen siday wax ugu kariyaan ay u badbaadin xildhibaanadan qaad maqlaysan waxay yiraahdeen anaga wadanka ugu soo dhaweyn doona fariin baan u dhaafnay xildhibaanadeena fariinteena waxay ahayd isbedel waad samayn kartaan naftiina aamina ilaahayna ku kalsoonaada dalkeena isbedel buu u baahan yahay run ah iyagana fariin bay u dhaafeen waliba khaasatan dhalinyaradeena in dalkii iyo dadkii uu sugayo isbedelna la wada samayn karo SYL darajiyo wanaag baad u shoodataan inaan dib u raacna taariikhoon dibnicin daraysta la dagaalay danteenu tahay. munaasabadan oo ahayd munaasabad lagu weyneynayay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliya ee ururkii SYL kuwaas oo ahaa 13 dhalinyaro ah isla markaana ay suurta galiyeen in Soomaaliya ay noqoto wadan xor ah
waxaana jaaliyadda soomaalida ee Finland ay aad ugu faraxsan yihiin ka qayb qaadashada xafladani xildhibaanada Soomaaliyeed ee iyagu martida u ahaa waddanka Finland iyo sida ay u soo agaasimeen ururka dhalinyarada Canada waana markii ugu horeysay oo ay soo gaaraan xildhibaano ka socda baarlamaanka Soomaaliya waddanka Finland Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Journal Helsinki Finland